waxaa marka si dadban loogu adeegsan karaa waa la siyaasaday karaa si dadbanaa marka siyaasiyiinta markaa systemka markaa jooga mucaaradka ah ayaa in loo adeegsado way sahlan tahay waxayna ku xidhan tahay qofka markaa jooga qof dawladnimo iyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn iyo sharci iyo aayad dambe aaminsan hadduu yahana hay'ad caadi noqonay. Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada noolaato aniguna waa Yaalo Xuseen Cabdi waxaa farxad ii maanta oo sharaf weyn ah inaan halkan ku wareysanayo Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya. ugu horeyn waxaan rabaa inaan ka wareysto arrimaha ku saabsan xagga ciidamada wadanka heerku soo maray iyo xaaladda uu joogo. maxaa hortaagan in laga adkaado al-shabaab? saddex shay aan ku soo koobi lahaa. kow waa siyaasadda oon xasilnayn. mar haddaan siyaasadda xasilnayn anigee adigu waxaan ka wada shaqayn karnaa gurigan amnigiisa waxaan ka wada shaqayn karnaa ama hoteelkan amnigiisa marka aan wax heshiis ku nahay. marka aan siyaasaddii heshiis lagu ahayn oo siyaasiyiinta Soomaalidu ay ka gaabiyeen heer federaal iyo heer dawlad goboleedba in laga heshiiyo siyaasadda amniga qaranka waa caqabada koowaad maxaa yeelay ayagu waa midaysan yihiin dadkii la dagaalamayna ma midaysna afgooye xamar ma midaysna balcad iyo xamar siyaasad amni kama midaysna iskaba daa garoowe iyo xamar iyo kismaayo iyo garoowe iyo kismaayo xamar waa number 1 marka qodobka labaad waxa waaye annagu go'aan ma gaarin inaan isku tashanno amnigeena ka shaqeyno dad kalaan aan dhahnay amniga ha nooga shaqeeyaan ami Soomaaliya noo joogta saaxiibo kale oo reer galbeed iyo carab iyo afrikaanaha noo jooga ayagii aan amniga u daba fadhinaa annagu qorshe aan leenahay oo sidaasaan rabnaa amniga inaan u sugno ma hayno amniga sugudiisuna magaalooyinka inaan ku raacdaystamaha dhalinyarada amnigu waa inaan meeshay joogaan ugu tagtaa marka qodobka saddexaad oo caqabada ahna waxa weeye waa qodobka u dambeeyay waxa weeye maxaan ku iraahdaa resource-ga asigoo awalba yaraa ayaan haddana sidaan u maamulaynay maanta oo kale waxay ahayd priority-ga number 1 in amniga la siiyo waa sax marka resource-gii iyo balaas qorshihii amniga ayagana waa caqabada labaad oo dawlad kastoo timaado aan priority u ahayn waa soo koobaynaa su'aalo kooban ka weydiin doonaa hay'adda NISA taliye ka noqotay waajibka hay'adda NISA iyo sharciyada ay ku dhisan tahay waa maxay waa ma santa waajibka hay'adda NISA waa ilaalinta amniga qaranka iyo raadinta iyo kaydinta sirta qaranka raadinta markii uu leeyahay waxa sirta ambaha arrimaha xogaha halista ku ah qaranka inay raadiso kana hortagto sharciyada ku dhisan tahay kala sirana ay xifdiso sharciyada qaranka si guud sharciyadeeda lamba waxay ku dhisan tahay sharci la yiraahdo law number 14 1971 labadii soo baxay oo 14 qodob ka kooban sharcigaasu sharci markaas maamulkii militariga oo markaa yimid oo dejiye ahayd sharci hadda la socon kara ma dhowr mar ayaa la isku dayay sharciga in la bedelo 2012 ayaa la isku dayay baarlamaanka la horgeeyay waa soo celiyay 2014 haddana la isku dayay baarlamaanku markasta marka waxay u arkayaan hay'addan sharcigeeda marka la horgeeyo golaha wasiirada ay soo dhaafto markii labaad baarlamaanka hor yaala sidaan ogaa baarlamaankiya marka sharcigi cusbaa ee la soconayay casriga iyo sida hadda hay'addu u dhisan tahay markasta baarlamaanku ku xayirmaa waxaana qiyaasayaa wax kala maahane waa cabsi la qabo laakiin waxaysan ogeyn sharciga hadda loo keenay inay ansixiyaan roon maxay la kan ay ku dhisan tahay ka daran kan ay ku dhisan tahay wax u xirinayo siyaasiga habeenbara u dhici kartaa qofka habeenbara iska soo xiri kartaa sharci la'aan waxa waaye nidaam oo military ay ku dhisan tahay hay'adda civilka hadda loo keenay marka soo roon inay hay'addan sida loo og yahay ciidamo military oo xukunka xoog ku haysta sameeyay sharciyadu sameystay maxaa dib loogu abaabulo loogu baahday in sidii loogu shaqeeyo marka hay'ad sameynayso waa inaad reference heshaa faram Cabdiqaasin ilaa Cabdullaahi Yuusuf hay'addan inay sameeyaan isku dayay marka hay'addu sharciga hore ku dawladnimadeena dhan dastuurka dhan aan ku shaqeynaba waa dastuurkii 60kii Soomaaliya hadii laga waayo midkan asaa loo noqonaya marka maadaama hay'adii aan sharci cusub loo sameeynin waa la sameeyay golaha wasiirada oo aan la dhameystirin waxay ku qasban tahay inay ku shaqeyso sharcigi hore u yilay ula jaan qaadaysaa marka nidaam dimuqraadi oo dadkii la soo doortay iyo hay'ad military ah iskula jaan qaadaya waa su'aasha aad muhiim u ah in la isweydiiyo horta waxay ku xiran tahay sharcigu mar kastaba
qofka meesha jooga damiirkiisa iyo mas'uuliyadda uu dareemaa marka qaar wax badan ka fargareeya dee qof mas'uula hadduu meeshaas tago oo danta qaranka ka fikira oo waddanku inuu dimuqraadiyaha ka fikiraya oo in federaal yahay ka fikiraya dee wuxuu ku jaangoynaa go'aanadiisa ee qaabka u dhaqmaya sidaa laakiin haddii qof macangaga meesha uu tago oo aan waxba dhowranayn oo inuu adkaada kaliya raba sharci uu ka faa'iideysan karo meesha waa yaallaa sharci uu ka faa'iideysan karo oo dadka kusoo xiri karo wuxuu raba ku shaqaysan karo sharciga militariga meesha yaalla marka waa halis laakiin mushkiladdu meeshaas maaha mushkiladdu baarlamaankeena Soomaaliya way shuruuc badan ay dhaqaajiyaan sharcigan hay'adda iyo sharciga argixisada la dagaalankaba waa la dhaqaaji waayaa markaad guddiga amniga baarlamaanka u yeerto tiraa sharciga maxaad u dhaqaaji laadihiinood maxaan ku idhaa waxay ku leeyihiin maya annaga ma sharciga hadda nagula soo xiri lahaa ama nagula maaragta naloo samaysanaa waxaysan fahansanayn kan loo keenaa boqolkiiba boqol ka fiican midka hadda ay ku shaqayso oo referencega u ah marka fahan la'aana way jirtaa cabsi dowladnimadii laga cabsahayo waa jirtaa oo dadku Soomaalidu ay gaar ahaan ciidamada iyo hay'adaha la xiriir ay ka cabsahayaan siyaasiyiintuna way jirtaa markastana guddiga amniga baarlamaanka dad looma xulo professional amniga ku ah ee dad waxaa loo xulaa 4.5 oo qabiil hebel oo matala marka nin waxaa ku imaanaa markaa tiraa waa sharciga baarlamaanka waayahay qofkii aad iga xirto ma ii soo daynee oo haddaan ku imaado ma ixtiraamee oo qofkan ka soo doono dhiil saas inuu kula galo isku daya marka meeshu ka hadlaa iyo waxa laga rabo ismale way maxay dadku uga baqaan hay'adda NISA waxaa looga baqayaa horta sideedaba caalamka saddexaad iyo gaar ahaan dunida carabta aan anagu ka midnahay dawlado dimuqraadiya laguma yaqaan inkastoo anagu aan 60kii dimuqraadiyadda ugu horeysa aan ahayn afrikaanka iyo carabtaba soo waxaa looga baqaa waa systemka markaas jooga oo naturally iska dictatorship ku barbaaray amba ay u badan tahay hay'adda ugu muhiimsan oo adeegsan kara waay oo iyadoo loo justification loo samaynayo amniga qaranka la sugayaa ama amniga qaranka wax ka soo horjeeda la dagaalamayaa waa hay'adda dawladdu ay gacanta ku hayso dabcan hay'addu hadda waxay ugu duwan tahay hay'adaha kale oo amniga waa ka dhismo fiican tahay dadka jooga quality-gooda institution ahaan maxaan ku sida waa hay'ad dhisan oo kooban oo sidii militariga ma baahsana sidii booliiskana sharci ku yuurar ma ahan oo booliisku waa sharci ku yuurar iyo moogta cinka waa hay'ad naturally marka u samaysan jabhadaha waxay la dagaalantaa organized crime marka maxaa kamid ah jabhadaha argagixisada burcadbadeeda waxyaabaha noocaas marka iyo siyaasaddu waa isgalaan waxaa marka si dadban loogu adeegsan karaa waa la siyaasaday karaa si dadbanaa marka siyaasiyiinta markaa systemka markaa jooga mucaaradka ah ayaa in loo adeegsado way sahlan tahay waxayna ku xidhan tahay qofka markaa jooga qof dawladnimo iyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn iyo sharci iyo aayad dambe aaminsan hadduu yahana hay'addu hay'ad caadihi noqonee qof dee xanaagsan oo inuu adkaado raba oo dee macangag ma dhihi karo laakiin dee noocaas hadduu yimaadana waa hay'ad uu dad ku lay karo waay soo marka waxyaabaha aan ka digaya marka waxaa ka mid ah dawlad systemka hadda kan waaba dhammaaday xilligiisa hay'addan waa in la si saxa sharciyada cusub ee loo sameeyey amba waxa laga bedelo amba hal qurxiyo waa in sharciyadii hore ma ku shaqay karto ismana qabanayaan sharciyad saxa oo la jaan qaadi karto waqtiga in loo sameeyo Tuuriyada marka mar hadda tiri sharciyad kuma dhisna waa ku dhisan tahay sharci ku yurar maaha sida booliiska oo kale dabcan way adeeg sharciga ku dhisan tahay sharci la dhihi karin waa sharci military samaysta waay marka ma la dhihi karaa taliyaha nabad sugidda sideedaba waxa xukumo madaxweynaha wuxuu rabo uu furuna yeelaa taliyaha nabad sugidda horta wuxuu la mid yahay taliyaasha kale afarta taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha waay horta afarta taliyu ka mid yahay si gaar ah taliyaha nabad sugidda waxaa u saaran madaxweynaha la taliyaha gaarka ee madaxweynaha waay macnaha in la magacaabo u baahna automatically maxaa yeelay xogtii uu hayaa amniga qaranka dibadda iyo gudaha waxa ka socda madaxweynaha inuu marka arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha istiraatiijiyadda kala taliyo oo madaxweynuhu waqtiga ugu badan qofka uu la qaadanayo ay taliyaha nabad sugidda noqoto waa wax la og yahay oo caadi laakiin waxaan ku iri walaal waxaan ku dhahay daad ifahantay hay'addu ma xuma sharciguna ma xuma sharciga hadda yaal naftiis
وننكي دقنه هو أن دولة نمر بين شرع وسقل دم أديك سكر واي لكن قفك الدولة نمر بقى استراتيجية له أركتيف فوق له هي أدو إني حوج لها تو عدو الدلك وكبره يعدو جودها يعدو جدبده هي أدو كبغان إنه قتال ربع لكن أي سن موادرين تكبغين موادرين أما موادرين سياسيين أما موادرين عادة هوريتك أما موادرين سيفل سيرفنتك إني سكبغين على ربع هي أدو مركز ساس وحكى ليه كرا شخص ماشي جو جنرال عبد الرحمن محمد توريري taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka ayuu ahaa barnaamijkan gaarka martin ugu ahaa waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan taliya aad u baahsan tahay waa guulan ku rajaynayaa magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy